shaqaalaha waan salaamay mudana gudoomiye doodan waxaan rabaa inaan saddex angal ka fiiriyo midda koowaad xagga sharciga iyo muxuu ahaa ito shaqaaleynta qof ajnabi ah oo in la shaqaaleeyo iyo ujeedada muxuu ahaa ito laga yeelan karo in qof ajnabi la shaqaaleeyo waxaan ku hormarayaa xagga sharciyada mudana gudoomiye sida ku cad dastuurkeena ku meel gaarka ah qodobka 139 wuxuu sheegayaa dhammaan xeerarka dhaqangalka ah ka hor inta aanu hirgelin waxa ay ahaanayaan qaar sii shaqeeya waxaana laga dhadhansan doonaa laguna dhaqi doonaa wax ka bedeladaas qaadashadaas in la cayimo iyo in wax laga soo reebo haddaba sida looga maarmid waayo si loo waafajiyo dastuurka ilaa goorta xeerarkaas wax ka bedel lagu samaynayo ama meesha laga saarayo ayagaa sharci ahaanaya marka waxaa meeshan yaalla xeer waxaa yaalla sharci la ansixiyey oo meel maray sidaa daraaddeed mudana gudoomiye xeerarka shuruucda marka la rabo in wax laga bedelo waxay leeyihiin habraac dastuuri ah oo loogu talagalay inay maraan qodobka 79 ee dastuurka wuxuu qeexayaa si waafaqsan habraaca sharci dejinta wuxuu qeexayaa isla qodobka farqada daa marka waxaa habraaca sharci dejinta ka mid ah dib u eegis sharci hore u jiray in dib u eegis lagu sameeyo waxay ka mid tahay sharci dejinta ka mid tahay marka habraaci sharci dejinta in la maro ay ahaydna iyadana waxaa qeexaya qodobka 82 qeexaya farqadiisa koowaad xarafka ah inuu baarlamaanka inuu golaha shacabka uu ansixiyo sida uu yahay ama asagoo wax ka bedel asagoo wax ka bedelay uu ansixiyo markaan loo diro aqalka sare kadibna uu maaragtay golaha shacabka lagu soo celiyo madaxweynuhuna uu maaragtay saxiixo markaasuu sharcigaasi uu bedelmi karaa laakiin hadda waxaana hor yaalla waa xeerka markana hor yaalla siyaabo badan baa looga hadlay xeerku waxa uu sheegayaa ujeeddadiisu waxay tahay xeerka maamul ee golaha wasiirada ogolaadeen oo si ku meel gaar ah u hagaya xulitaanka xubnaha guddiga agaasinka ujeeddadiisu waa in la soo xulo ma garanaysaa cidda maamulaysa bangiga dhexe wuxuu isla qodobka labaad haddana xeerkana loo keenay uu sheegayaa iyada oo aan wax loo dhimaynin sharciga 130 qodobka 12 farqadiisa koowaad xarafka ah waxaa loo ogolaanayaa guddiga xulista xubnaha golaha agaasinka ee bangiga inay soo xulaan qof kasta sharcigiina waxaa ku qorneed qof Soomaaliya meeshaas marka waxaa ka muuqata ujeedada xeerka laga leeyahay oo ah qof kasta oo macnaha insaan ah ama ha ahaado Soomaali ama ha ahaado dad kale ujeedada laga leeyahay waxa weeye waa midaas gudoomiye anoo soo koobaya marka baarlamaanka haddii la rabo in sharciga wax laga bedelo waxaan mudana soo jeedinayaa in la marsiiyo habraaci loogu talagalay sharci bedelista waxaan rabaa marka laba zakariya waqtigu ka dhac waxaa qoran 30 iyo waxaa qoran 3 xildhibaan marka zakariya waxay yahay labadeeda qodob oo kale marka gelaya qodobkaas sharciga aadna waa looga hadlay oo ka gudbayaa labo shaqaaleynta qof ajnabiya marka annagoo aan ognahay maanta wacyiga aan ku jirno iyadoo dhallinyaradii aqoon-yahanada ahayd oo Soomaaliyeed ay tahriibayaan oo qaarkood ay wadamo kale ku xiran yihiin oo ay badaha ku dhimanayaan shaqo la'aan ka jirta waddanka awgeed in qof ajnabiya la yiraahdo waxa shaqadii soo baxdaa la siinayaa waxay meel ka dhac ku tahay aqoon-yahanada Soomaaliyeed ama banaanka ha jiro ama gudaha ha joogo mudana gudoomiye sidaa ognahay shaqaalaha maanta dawladda jooga waxaa shaqaaleeyey dawladihii ka horreeyay dawladdan 3 sano annagu aan joogna hal qof oo shaqaalaha lama qorin mar walbana baarlamaankuna waa ka hadlaa guddi gaar ahaan guddiga maaliyadana way ka hadleen dhowr goor qofkii ugu horreeyo marka wuxuu noqonayaa nasiib inuu u yeesho nin ajnabi ah oo waliba gumaystiye waddankan soo gumaystay ah
oo caddaan ah inuu noqdo qofkii ugu horreeyey oo laga shaqaaleeyo meeshaan waxaa laga sheegay soomaali badan baa waxay ka shaqaysaa caalamka war soomaalida caalamka ka shaqaysa ma soomaalinimay ku shaqeeyaan mase waddankay ka shaqeeyaan bay dharshiisa ku shaqeeyaan